Kaaraan dadka waa okayd karboonana dhulka waa okaax. Degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ayaa sanadkan ku guuleysatay degmada ugu wanaagsan gobolka Banaadir. 2025 Kaaraan waa cadar aan hore looga aqoonin ayay soo bandhigtay aalaheed amniga bilicda laamiyada muufada macasarada oo la casriyay wax kasto godgeesi ugu dambeyn degmada Kaaraan waxay ku guuleysatay degmada ugu wanaagsan gobolka Banaadir degmooyinkiisa waayahay Axmed Saciid adigana maxaan leeyahay warkan aan caaw u sido dadka ku nool degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir inuu jiro warka farxad badan oo ay maqli lahaayeen waa Kaaraan aniga laftirkayga u maleemayo warka farxad badan oo ay maqli lahaayeen reer Kaaraan in oo jiro soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa barta aan YouTube ku leeyahay ee farxadda media hadii aad janaalka cusub tahay please subscribe saar gambalelka furo si aad u noqotid daawadaha koobaad commentiga dhiirigelin inuu yahay share-tana meel fog gaarsii reer Kaaraan hadii aad tahana maba ku sii jirtidba Kaaraan ayaa waxay ku noqotay Kuala Lumpur iyo meel kale qurux badan iyo Dubai ay ku noqotay reer Kaaraan waa cadar ayay dhigeen degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ayaa sanadkan lagu qiimeeyay inay tahay degmada ugu wanaagsan gobolka Banaadir sidaan ognahay dib markii loo laabto degmada Kaaraan waxay ahaan jirtay goob la isku xifaalay oo dhaho waradii maxay ogtahay reer Kaaraan aad tahay magaalo ma ka imaatay Kaaraan magaalo ka degantahay reer Kaaraan Busley reer Kaaraan Hebelow alxaasil adduunyadu waxay soo socotaba reer Kaaraan il bixeeno laamiyadan arkaysana quruxda badan iyo wacdarahan ay dhigeen oo sanadkan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxa lagu qiimeeyay inay tahay degmada ugu wanaagsan gobolka Banaadir hadii ay lahayd amniga bilicda wax kasta waa hormariyeen waliba waxa lagu leeyahay reer Kaaraan muufada xitaa waa hormariyeen ayadoo casriyeysana madaxdii Kaaraan ka doonanay muufada macasarada ka daran laamiye saasa la dhisay Kaaraan Buslo waa laga baxay interloga xaafadihi la isgaliya reer Kaaraan wixii la dhahaba Kaaraan Busle maxaa la yiraahdaa Kaaraan Jajab tiitinka waaweyn waxa u dhow meel lafaha lagu soo daadsho godad qashinka kaawa laga qodaa adiga wixii kasta oo macnaha magaalada ka baxsan wixii garka loo galiyaba ma dhihi karnaa marka degmada Kaaraan gudoomiyaha hadda loo dhiibay ayaa sidaan sabab u ahay maadaama Kaaraan aysan ahayn degmo shalay iyo daraad la magacaabay degmo soo jireen oo qadiimi ay tahay waligeedna Kaaraan Busle iska ahayd Kaaraan qurux badan ayaa ka dhigaas dhihi kartaan run ahaantii anigu waxaan u hambaleynayaa gudoomiyaha degmada Kaaraan gudoomiye ku-xigeenada gudoomiye waaxeedyada shacabka Kaaraan iyo qof kasta oo bilicda Kaaraan ka talisay inay saas u qurux badnaato reer Kaaraan waxaan leeyahay guud ahaan hambalyo waliba reer Kaaraan hadaad tahay muuqaalka meel fog gaarsii soo dhawaada saaxiibayaal ku sii fogaan maayo muuqaalka reer Kaaraan waxaan idin leeyahay hambalyo YouTube-kuna waa YouTube-kiina farxadda media subscribe-ka la dhaco gambalelka hal iska furto soo warku degdeg kugu soo gaaro